Cabdi Dhagoole waxa uu ahaa nin aad u maskax badan. Xarragii Cabdi Dhagoole waxay socdaanba waxay soo gaadheen kayn aad u weyn. Laakiinse nasiib darro ninkii xarraga saaxiibkii ayuu kayntii ka dhex cararay isaga oo aan sababtana u sheegin. Cabdi Dhagoole waxa uu soo socdaba waxa uu soo gaadhay meel uu joogay nin tuuga oo sugaya qof uu dhaco. Cabdi Dhagoole waxa uu ahaa nin aad u maskax badan. Inta uu dib u yar baxay oo uu shanqadha iska yareeyay ayuu dib iskaga cararay. Nasiib wanaag tuugiina kuma baraarugin. Odaygii Cabdi Dhagoole ahaa naxdintii ayaa ka kala badan. laakiinse nasiib wanaag waxa ku soo dhacday fikrad. Waxa uu doonayaa inuu askariga ku qanciyo inuu gurigiisa u raaco. Askarigana waa uu diidan yahay. Waxa la iska jiitaba ugu dambeyntii waxa lagu heshiiyay in la isku raaco guriga odayga oo uu askariguna odayga la deganaado. Cabdi Dhagoole oo naxsan oo isla tuugii ku daba socda ayaa gurigiisa soo gaadhay. Laakiinse naxdintii ka weyn ayuu guriga ugu yimid. Waxa uu yimid askarigii oo gurigooda iska hor jimicsanaya. Laakiinse nasiib wanaag askarigii ayaa gacanta u soo taagay dabeetana u soo dhaqaaqay xaggiisa. Markaasuu intuu dajiyay uga sheekeeyay wixii dhacay. Cabdi Dhagoole iyo askarigii ugu dambeyntii waa isfahmeen waxaana ay ballan ku qaadeen in ay soo adeegi doonaan. Cabdi Dhagoole iyo askarigii sidaas ay isku fahmeen. laakiinse hore loo yiri wanaaggu dadka kama wada farxiyo. Isfahamka qaar rag baa ka xumaaday ragna way ku farxeen.